dalka la wareegay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo haatan ku siman muddo sanad ah oo wax yar ka dhiman yihiin waxa ay soo tareeyay tabashada ay bulshadu ka qabto dheeli ku yimid habkiisa ama qaybsiga ay beelaha Soomaaliland ku wadaagi jireen xukuumadda hadba talada haysa madaxweyne Muuse Biixi ayaa haatan si weyn loogu dhaliilaya in beesha uu ka soo jeedo xukuumaddiisa ka siiyay saami buuran oo aanay xaq u lahayn halka uu beelihii kale ee Soomaaliland qaarkood cidla kaga tagay isla markaana aanu dawladdiisa kaba qayb galin halka uu kuwa kalena saami kooban ka siiyay dhaliilaha ugu badan ayaa madaxweyne Muuse Biixi waxa loogu jeedinayaa in beeshiisa uu gacan galiyay boosas muhiim ah oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha maxkamadda sare taliyaha ciidanka qaranka wasiirka maaliyadda agaasimaha madaxtooyada garyaqaanka guud ee qaranka iyo xubno kale oo doora madaxweyne Muuse Biixi ayaan dhinaciisa ilaa hadda dhag u dhigin tabashada laga qabo saami qaybsiga xukuumaddiisa iyadoo laga filayay in isku shaandhayn uu sameeyaa ay wax ka bedeli doonto balse isku shaandhayntii ugu dambeysay ee uu sameeyayna waxa ay beeshiisa u sii kordhisay boosaska muhiimka ah ee uu ka siinay xukuumaddiisa isagoo haatan gacanta u geliyay mar kale wasaaradda maaliyadda haddaba daawadayaal waxaynu dib u milicsan doonaa aragtida uu madaxweyne Muuse Biixi ka qabay dheeli ku yimid xukuumaddii Allah u naxariistay madaxweynihii labaad ee Soomaaliland marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Muuse Biixi oo shir jirayd ku qabtay Hargeysa waqtigii ay sahayeen madaxweyne Cigaal iyo qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliland waxa uu marka hore dhaliilo u soo jeedinayaa madaxweyne Cigaal waxaanu hadalkiisa ku bilaabayaa sidan suldaanka xilaya oo siyaasiga xilaya oo ninka ilaahay taageero ku dalbanaya oo distoor baa ku dhaqmaya oo tayada wadaagada Soomaaliland ku jirto ina beeshiis Maxamed Xaaji Cigaal cid isku haynay ma garanayo sidoo kale Muuse Biixi oo shirkiisa jiraay laga dareemiyay heerka ay taagnayd mucaaradadii adkeyd ee uu kaga soo horjeeday madaxweyne Cigaal ayaa markan soo bandhigay sida ay u dheeliday xukuumaddii Cigaal waxaanu mid u tirinayaa kuraas muhiim ah oo ay waqti xaadirkan xukuumaddiisu dhisan tahay uu magacaabay xubnaha isku beel yihiin iyadoo uu maanta ku dhaqmayo wixii uu ku dhaliili jiray madaxweyne Cigaal Cigaal hal baan leh maanta ayaad awoodii ku soo urursay in aad ku sugnaatid daakhiliga xaakimkii sare xeer ilaalintii taliye ciidan maanta awoodii ku soo urursay in suldaanada uu xukumo maanta siyaasadda hadda halka ku soo ururtay waxaan kugu talinayaa wixii hore lagu yiri ana ogin hada aqbalay